Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada janalkayga janalka aad naga daawanayso waa Soomaali Food Channel haddii aad nagu cusub tahay soo dhawo subscribe inoo dheh haddii aad ka hesho fiidiyowga like dheh asxaabtayda soo dhawaada ayaan leeyahay mar kale maasha Allah asxaabay sida arkaysaan maanta waxaan wadaa quraac caruurta maasha Allah ay jecel yihiin oo aadna u fudud maasha Allah hadda ka soo tuur hadda sa arkaysaan soo qaatay kadibna waxaan sameynaa xabadaas oo mooska ayaan kusoo jarjarayaa aan qiyaasta xabadaas ayaan isticmaalayaa soo adii haddaad doontid hal xabo ka badan waa isticmaali kartaa maasha Allah sida arkaysaan waa kana halka xabo ayaan soo jarjaray kadib waxaan kusoo darayaa waxaan kusoo darsanayaa laba xabo ukun waa kana labadaas xabo ukun ayaan ku darsanayaa mooska markaa labada xabo ukun kusoo daro waxaan kusoo darayaa oo kale caano ayaan kusoo darayaa qiyaastii bakeeri caano ayaan kusoo darsaday kadib mashiinta ayaan soo qaatay ayaan ku gediyey saa arkaysaan kadibna waan shiidaynaa laakiin waxaan ku darsanaynaa intaana shiidin ka hor waxaan kusoo darayaa sokor waa kana qiyaastii saddex xabo oo saddex qaando ayaan kusoo darsanayaa saddexdaas qaando oo sokorta ayaan ku darsanayaa maadaama hadhowti aan chocolate aan isticmaalayo pancake sokor badan ma ku daraayo soo waa kana markaan ku darsaday waxaan kusoo daro kale wax yar oo cusub ayaan kusoo darsaday dan waxaan kusoo darayaa baking powder ayaan kusoo darsanayaa waa kana maasha Allah dan waxaa kaloo kusoo darayaa vanilla ama vanilla powder isticmaal ama vanilla oo aniga laakiin tan oo maxaa la dhahaa biyo ayaa isticmaalayaa soo ani hadda midaad doontid ayaa isticmaali kartaa soo waa kana kadibna waan isku shiidaynaa maasha Allah saa arkaysaan intaas ayaan si fiican isugu soo shiidaynaa kadib waxaan sameeyay waxaan soo qaatay weelkan ayaan soo qaatay kadib inta ayaan kusoo gedinaynaa waa kana maasha Allah hadda saa arkaysaan inta ayaan kusoo gedinayaa dan waxaan kusoo darsanayaa qiyaasta bur ayaan kusoo darsanayaa insha Allah asxaabay waa kana burkaas ayaan kusoo daray waa kana qandana waxaan soo qaatay waa isku qasayaa intaas maasha Allah waa kana hadda markaan isku qaso waxaan sameynayaa waxaan mashiinta ayaan isticmaalayaa aniga marka mashiinta ayaan kusoo shiidayaa maasha Allah waa kana hadda mashiinta ayaan isticmaalaynaa mashiinta inaad isticmaashid haddaad doontid gacanta bis ay ku qasan kartaa maasha Allah waa kana isku soo laabanayna markaan soo dhameeyo waa kana asxaabe markaan si fiican u soo shiiday waa kana sidan oo noqday kadibna waxaan sameynaynaa waaba diyaar inoo waan dubaynaa marka birtaan ayaan dabka soo saartay saa arkaysaan birta ayaan dabka soo saartay kadib waxaan soo mariyay wax yar oo saliid ayaan mariyay maasha Allah kadibna pancake ayaan dubaynaa pancake ayaan dubaynaa waa kana xabada koobaad ayaan kusoo shubay saa arkaysaan maasha Allah waa kana kadibna waa kana waan gedinaynaa hoos sidaas ayuu naga soo noqday goldi maasha Allah sidaas ayaa laga rabaa inuu noqdo soo waa kana dhinaca kale ayaan gediyadan wax yar ayaan ku haynaa dabkana inaad iska gaabisid waaye oo dab gaaban aad ku dubtid haddii aad dabka u dheeraysid si fiican kuu noqonayo because hoos ayuu ka gubanayaa soo waa kana maasha Allah kulli sidaas ayaan kusoo dhameynayaa insha Allah hadda waa kana xabadi kale ayaan kusoo shubayaa isla sida ayaan ugu shubayaa maasha Allah waa kana xabada kale ayaan ku shubaynaa hadda kana haddana dhinaca kale ayaan u gedinay saa arkaysaan maasha Allah kana hadda waan ka saaraynaa insha Allah asxaabay midda xabada kale ayaan kusoo shubayaa soo dhowr xaba ayaan tusayaa kasta kale markaan soo dhameeyo ayaan isku soo laabanaynaa insha Allah because marba fiidiyowga inaan ku sii dheereeyo soo waa kana xabada kale markaan ku shubo waa kana waan gediyey kadibna waan ka saarayaa soo xabad kale ayaan ku shubayaa hadda saa arkaysaan
maasha allah waa kana cabadan kale ayaan ku shubay maasha allah ayadana isla sidii le waan gedinaynaa wax yar ayaan u kaadinaynaa waa kana kadibna waxaan ku dhawaan ka saaraynaa maasha allah asxaabta quraacdan waa quraac aad u fudud aadna u macaan badan caruurta ay jecel yihiin nafaqo leh maasha allah waa kana hadda mid kale ayaan kusoo shubay waqti badan maba kaa qaadanayso soo waxaan ku dhahay hadda dub le waabo waxaan ku dhahay hadda qas hadda dub waxaan ku dhahay baankeyga caruurta ay jecel yihiin maasha allah markaad mooska ugu sii dartidna aad ayuu macaan badan yahay maasha allah waa kana sidaas ayaan ku wadaynaa kulli saas ayaan kusoo dhammaynaynaa insha allah markaas ayaan isku soo laabanaynaa hadduu ilaah yiraahdo asxaabe waa kana marka waan soo dhameeyey kadib kulli waxaan ku dhahay saxankan ayaan soo saartay maasha allah sidaa quruxda badan ayuu kusoo baxay hadda waxaan sameyneynaa next step ayaan sameyneynaa nutella ayaan inta ku haystaa hadda waxaan soo qaatay chocolaatekaas ayaan inta ku haystaa soo waxaan ku dhahay dhinac ayaan sidaas uga marinayaa maasha allah saa arkaysaan waa kana sidaas ayaan u marinayaa maasha allah kadibna waan isku soo laabayaa saa arkaysaan sidaas ayaan iskugu laabaa iskugu duubaa saa arkaysaan maasha allah den saxanka ayaan saartay den xabad kale ayaan sameynayaa xabada kale ayaan niitusaa iyadana sidaa u sameynayo maasha allah waa kana saa arkaysaan xabada kalena isla sidaas ayaan u sameyneynaa saas marka uu soo sameeya iyadana isla sida waan isku laabayaa sidaas ayaan iskugu qabanaa maasha allah waa kana xabada kale waaye soo kulli sidaas ayaan kusoo dhammaynayaa insha allah waa kana xabada kale ayadana isla sida ayaan sameynayaa markaan soo dhammeeyo ayaan isku soo laabanaynaa insha allah waa kana hadda waa kana asxaabi markaan soo dhammeynay kadib waxaan sameeyay strawberry ayaan soo jartay oo waxaan ku dhahay dhinacaas ka saaray iyo kiwi waxaa kale moos maasha allah asxaabi waa kana quraacdayna sidan ayaa kusoo baxday maasha allah quruxda badane waa kana caruurta looga faa'iideeyo waxaan rajeynayaa asxaaba inaad ka heli doontaan ood ka faa'iidi doontaan videogan haddii aad ka hesho videogan like dhe lana sii sheegaray asxaabtaada wixii fikradooda qabtidna inoogu reeb qaybta hoose insha allah waa mahadsantiin asxaabtayda soo dhawaada ayaan leeyahay